waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrinta e-visa iyo Premier Bank. Sidii aan hore ugu soo bandhigay baraha bulshada, waxaan ummadda u caddeynayaa in Premier Bank mashruuca e-visa qayb ka yahay. Mashruuca Premier Bank ayaa hindisay, isagaa maalgeliyey, isagaa kula shuraakoobay shirkadda la yidhaahdo Empire ee qoyska Xasan Sheekh leeyahay. Marka horta dadku ha ogaadaan in Premier Bank adeeg caadiya aanu bixinayn, inaanay ahayn lacag soo ururinayo keliya, ee inay tahay hindise iyo qorshe isagu muddo ka soo shaqaynayay, maalgashaday, imikana ku dhegan yahay. Runtii shuruucda lacagaha, kuwa lacag dirista, kuwa kaadharka ayuu Premier Bank runtii meel kaga dhacay oo uu jebiyey markuu waxaan sameeyey. Dadaal badan buu ka galay inaan isaga la ogaan iyo shirkaddan ay shuraakada ku yihiin e-visa. Taasaa keentay marka inay muddo badan qaadato in la soo ogaado cidda lacagta loo qabanayo oo ahayd Empire iyo bangiga mashruucanba ka mas-uulka ee lacagta caalamka o dhan ka soo ururinaya. Markii aan soo ogaaday baaris dheer kabacdi soo helay, qolada Premier Bank way la soo xiriireen, waxay la soo hadlay guddoomiyaha shirkadda oo xiriir fiican inaga dhexeeyo, oo markaa ii sheegay in mashruucan uu yahay mid ay ku jiraan, ii sheegay cidda kula jirta, sida lacagta loo qaybsanayo, waxaasoo dhan. Runtii waan la yaabay bangi aan aqaanay oo inuu ilaa wax noocaasa ku kaco. Dabadeed dood badan baana dhex martay, waxaan ku yidhi war idinkana waxaan dhaawac baa idinka soo gaaraya, annaguna waxaan aqbalayna maaha. Horta markaa aniga iyo Premier Bank wax gaaruuna dhex maray ma jirto. Runtiina waan ka xumay dadka in been cad loo sheego oo warqadii hore Hargeysa laga soo saaray la yidhaahdo ganacsi baa la isku hayaa. Lacagaha ugu badan ee Premier Bank bixiyo shirkada aan ku soo xidhay baa ay ka bixiyaan. Waxaan ixtiraam iyo wanaag ahayn oo naga dhexeeya dadka Premier Bank maamulkooda ah iyo hantiilayaashooda ma jiraan intaan ka aqaano. Marka horta taasi waa sida waxa qura naga dhexeeya waxa weeye oon isku haysanaa waar isbaaradana meesha noo soo dhigtay naga qaadayo qaadi mayno. Wax kale oo meesha ku jira ma jiraan. Anigu maanta waxaan doonayaa inaan ummadana markhaati ka dhigto oo waxaan leeyahay waryaan berito la is eersan, waar cid waliba ha aragto. Bangigaasi Premier Bank wuxuu ku jiraa arrin cawaaqib xumo ku dhammaan doonta oo iyaga dhibaata uga iman doonta hadday ku sii socdaan. Waar waxaan leeyahay waar waxaa naga kiin qaban annagana nagu kalifina, idinkuna halis haysgelinina, wallaahi inaan is soconin waxaan wadaan. Weli kuma degdegayno inaan wixii tallaabadii aan idhi waan qaadayaa oo ahayd in maanta warbaahinta dibadda aan la hadlo oo Kenya ka bilaabo, oo Maraykanka dacwadda ka oogo, oo Ingiriiska iyo Yurubba aan ka oogo. Dib baan u dhigtay. Waxaan ugu dhigtay in markhaatiyada in dadku inoo garqaado. Waar waxa la isku haya waa arrintaas qura. Waar haddii aad ku sii deganaataan oo tiraahdaan lacagta baadda ah ee qoyska Xasan Sheekh loo ururinayo ayaanu reer Somaliland ka qaadeen cashuurta xaaraanta ah, tii ogaada aqbali mayne. Waar dad waxaasi qabtaan banhi, war dad waxaa ogol dadkayga baad lagama qaado ka wadha. Marka waxaan leeyahay war niman yow bal isku noqdo mar kale. Waar arrintaas wallaahi meel lama tegayso, ma aha sheeko social media intay dhowr cisho socoto sidaa ku soconaysa. Mushkilad weyn bay idinka imanaysa. Waxaan idiin sheegayaa bangigii aad iibsateen Kenya sababtii uu kacay waa garanaysaa. Waa dad tiro kooban oo social media in lacagteedii baanu ka qaadanaynaa oo branchkoodii kii loo galay. Hadda bangigu lacagtii way hayeen ummadda, laakiinse markaasi account kuma jirin. Sumcadda ka dhimatay dartood baa keentay in bangigaas kaco idinku ay iibsataan. Waar bangi ummadda ka hor yimaada oo dadkiisa waxaasoo kale kula kaca oo badbaadaa ma jiro. Anaa ugu horeeyo odhan doono dadka cashuurta lacagtiina ka qaata haddii dagaalka aa wadaan aad joojin weydaan. Laakiinse ma doonayno kuna degdegi mayno taas. Mar kale isku noqdo arrintanu meel ma tegayso. Mashruucan idinkaa wata
idinka qoyska xasan sheekh kula soo heshiiyey lacag dowladeed maaha waynu ognahay taa lacagtaa ka qaadataan ma aha tii banki qaadan lahaa waa maalgashigii aa geliseen khatarta aa qaadanaysaan ayaa lacagtaa badan ee 10 laab ka badan wixii aa qaadan lahayd in laydii siiyey mar waxba laysu qarin maayo mar waxaasoo dhan oo caddaynaa la hayaa waarnimayo bal isku noqdo mar kale oo war ka duwan wixii hargeysa ka soo saarteen la kaalaya ogowna anigu bangigan la hadlaya ma aha laanta hargeysa ma aha xarunta bangiga ee muqdisho oo qura waxaan la hadlayaa premier bank groupko dhan baan la hadlaya oo ku jirto qaybta kenya dacwaddu kenya ka bilaabmi doonta soo maaragta marka premier bank waa dhowr qaybood iyo waxaas ma shaqaynayso kama soconayso waan af soomaali baynu ku wada hadlaynaa war sidee wax yihiin waa nabiga isku noqdo bal aynu wax dadku fahmaan la kaalaya